الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaynu ku guda jirnay tafsiirkeeni qur-aanka kariimka ah. waxaynu ka qaadaynaa xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى waqumuu lilahi qaanitiin fain khiftum farijaalan aw rugbanan faida amintum fadkuruu llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun. xaafiduu xifdiya oo ilaaliya cala asalawaat salaadihii xifdiya oo ilaaliya wasalaati alwusطى khaasatan salaada wusطى salaada dhaxana ilaaliya. waqumuu isu taaga lilahi alle liajlihi qaanitiin idinkoo aamusan oo u qunuudaya. fain khiftum haddaad baqdaan fasalluu tukada rijaalan idinkoo waxa weeye lugaynaya, ow rugbaanan ama tukada idinkoo gaadiid saaran. faidaa goortii amintum aad aamin noqotaan fadkuruu allaha alle oo salaadaha sidoodii u tukada kamaa sidii callamakum uu idiin baray ay ka tacliimihi iyaakum maa lam takunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwa wax garanaya. aayaadkan xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى waqumuu lilahi qaanitiin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu tilmaamayaa xifdinta iyo ilaalinta salaadaha la ilaalinayo oo waktigoodii la ilaalinayo. shareecadeenu ihtimaam ballaaran bay saartay oo salaadaha iyo xifdintooda iyo ilaalintooda ah. oo waxa uu leeyahay xaafid ibnu kathir raximahullah markuu fasiraya wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala wuxuu addoommada faraya oo mu'miniinta bilmuxaafadati ala salawaati wa fi awqaatiha wa xifdi xuduudiha wa aadaa'iha fi awqaatiha. waxa uu leeyahay wuxuu allah subxaanahu watacaala amraya salaadaha in la xifdiyo awqaadeeda, waktiyadeeda in la xifdiyo, in xuduudeedii iyo xadkeedii iyo arkaanteedii iyo shuruudaheedii iyo aadaaeedii iyo gudashadeedii la xifdiyo, waktigeediina lagu xifdiyo. bal xadiis baa ku sugan bukhaari saxiixeynka iyo muslim ba ku sugan oo macruuf aad garanaysaan, cumdaha iyana waad ku marteen. cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu waa wuxuu oran jiray sa'altu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulkan waxaan weydiiyey ayu lcamali afdal, rasuulka allow camalkeebaa ugu fadli badan? qaala markaasuu yihi asalaatu fi waqtiha, salaada oo waktigeeda la tukado. qultu waxaan ku idhi uma ayu, maxaa ku xiga rasuulkiio? qaala waxa uu yihi aljihaadu fi sabiili illah, jidka alla subxaanahu watacaala oo lagu jihaado diintiisa oo la kor yeelo. qultu waxaan ku idhi uma ayu, maxaa ku xiga rasuulkii allow? qaala waxa uu yihi biru lwaalidayn, labada waalid oo loo samafalo oo wanaag loo sameeya ayaa ku xiga. axaadiistaas oo dhan waxayna tusayaan oo inoo tilmaamayaan marka in la is-amray in salaadaha la xifdiyo, waktigoodii la xifdiyo. haddaanan la xifdin waa tulku salaadu ku tilmaamay rasuulka. xadiiskii sidoo kale uu werinayay saxaabigii jaliilka ahaa oo uu oranayay rasuulka sala allahu alayhi wasalam maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa weeye rasuulku wuxuu yihi salaadii tukada, qumu wuxuu yihi fasalluu lcasra, salaadii tukada, casrka tukada. faqumna fasallayna waan tukanay. falama insarafna marka aan ka baxnay qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaqulu, ayaan maqlay tilka salaatu lmunaafiqi yajlisu yaqrubu shamsa xata ida kanat bayna qarnay shayatiin qaama fanaqara arbacan laa yadkuru llaha fiha ila qaliila. salaada marka waxa weye tilka salaatu lmunaafiq, taasi waa salaadii munaafiqiinta. yajlisu wuu fadhiisanaya, yarqubu shamsa, qoraxda u sugaya ilaa ay godkeeda ka gasho. xataa ida kanat bayna qarnay shayatiin, marka ay dhacayso geesaha shaydaanku kale barkiisa ay ku aadan tahay ayuu qaama istaagaya fanaqara arbac, afar buu qaw ka siinaya. laa yadkuru llaha fiha ila qaliilan, allahna subxaanahu watacaala ma xusayo ilaa in yar mooye. taasi marka rasuulka sala allahu alayh wasalam aad buu nooga digay. marka culummadu inta badan waxay leeyihiin hayra waaxid min ataabiciin in la tacjiiliyo salaada casarka ta'khiiraha bay leeyihin, sidoo abu daa'uud uu keenayo. waxay nici jireen salaada in dib loo dhigo oo waxa weeye waktigeeda lagu tukado ayaa la is amray, ilaa xiliyada kulaylka badan uu jira mooye si kale salaadihii waktigooda in looga dib dhigo ma banaana. xadiisyada abu daa'uud iyo keyrkii ay keenayaan. marka waxay taasi na tusaysaa marka in rasuulku sala allahu alayh wasalam waad garanaysaan si uga qoomamayn jiray oo tuu oran jiray
salaadii markii waxa weeye dagaalkii khandaq la aaday xabasuuna can salaati alwustaa salaati alcasri macnaheedana isaga noo fasiray salaatu lwustaadaasi inay tahay salaada casarka oo xadiiska cumdahana waad ku aragteen xabasuuna can salaati alwustaa waxay naga xabiseen salaadii wustada ahayd ee dhexe ee sharafta badneyd ee fadliga badnayd salaati alcasri ahayd mala allahu buyuutahum wa qubuurahum naara guryahooda iyo qabriyadooda ilahay subxaana watacaala dab naara ka buuxiyo xadiis kaloo saxiixa jira sidoo kale abu da-uudka uu keenayo wuxuu oran jiray caaisha waxay tiri maalin maalmaha kamid ah qur-aankuna de way tafsiirin jirtay nin bay waxay tiri masxafkii soo qor markaasa waxay ku tiri waxau amray ninkii baa oranaya taabiciga ahaa waxay amartay caaisha an aktuba laha musxafan kitaab qur'aan inaan usoo qoro macnaha inaan usoo qoro qoraal usoo sameeyo kitaab qur'aan u keeno markaasi waqaalad waxay u tiri idaa balagta hadihi alaaya faadini marka aayadan aad gaartana isoo ogeysi xaafiduu cala asalawaati wa salaati alwustaa xifdiya salaadaha khaasatan salaada fadliga badan falama balagtuha kitaabkiisaan u qorayo markaan aayadan gaaray ayaan adantuhaa ka idan qaatay oo u sheegay inaan meeshii gaaray faamlad calaya waxay ii yerisay meeshaa waxaa ku dartaa bay igu tiri xaafiduu cala asalawaati wa salaati alwustaa ay wa salaati alcasri waqumuu lilahi qaanitiin caaisha tafsiirkeedina sidaas u ahaa markaasay uma qaalad waxay tiri caaisha samictuha min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allaan ka maqlay oo sidaa ku fasiraya xadiiska muslimna wuu keenaya abu da-uudna wuu keenaya marka salaadaha casarka salaada wustada ee fadliga badan ee loo jeedo waa salaada casarka ah weeye ay waqumuu lilahi isu taaga qaanitiin idinkoo aamusana hadda xadiiska cumdahana waad ku aragteeno in la aamuso markii aayaadka la isbaray oo awal waa la hadli jiray salaada waa la isweydiin jiray qofka garabka markuu qofka kale kusoo qabto ayuu dhihi jiray ragcadee la maraya iyadoo sidaasa waxaa soo degtay buu yihi waqumuu lilahi qaanitiin sukuut baa nala amray aamus qunuudku macnaha dheerarkana way noqotaa qanaacada iyo daacadana way noqotaa macaani badan buu noqdaa hadda laakiin sukuut wey halkan xaafiduu xifdiya cala asalawaati salaadihii xifdiya wasalaati alwustaa salaadii fadliga badnayd ee dhaxana xifdiya waqumuu isu taaga lilahi alle liajlihi qaanitiina idinkoo u qunuudsan oo aamusayo salaadii alle ku ateecaya fain khiftum haddaad baqdaan fasalluu tukada rijaalan idinkoo waxa weeye gaadi soconaya ow rugbaanan ama waxa weeye gaadiid saaran faidaa amintum markaad aamin noqotaan oo cabsidii aad ka baxdaan fadkuruu xusa allaha alle kamaa sidii callamakum uu idiin baray maa lam takunuu taclamuun kaafku waa kaan marka kaaf waxa weeye kaafu shukri baa la yidhahdaayo sida ilaahay subxaana watacala ka tacliimihi iyaakum waxuu idin baray idinkoon waxba aqoonin oo uurka hooyadiin uu idinka soo saaray waxba aan gelin kaaf shukri weeye macnaha inaad macnaha kaafku macaani badan buu ku yimaada qur-aanku iyo naxwe ahaanta markaad qaatan lakalka kaafku waxa weye shukrin weye ilahay inaad uga shukrisaano kamaa sidii ka tacliimihi iyaakum uu idin baray maa shay lam takunu aydan ahayn taclamuuna kuwa garanaya aayaddaani waajibaadkii salaadii oo weli lagu jiraaye jihaadka ayaa waxay tilmaamaysaa haddii jihaad aad ku jirtaan oo aad baqaysaan cadaawad kasta iyo baqdin kastana way noqon kartaa laakiin macaanida jihaadkun baa hadda laga hadlayaaye haddii aad baqdaan oo salaada ay idiin suuroobi waysa sina inaad u tukataan ama cadow ka baq ama bahal ka baq ama wax kale ka baqe farijaalan idinkoo waxa weeye soconaya tukada fasalluu baa meesha ku taqdiirisan tukada farijaalan idinkoo soconaya ow rugbaanan ama gaadiid saaran qibladana qaabilsan ama kasii jeeda midaad doontaanba xadiistii marka aynu maraynay tilmaamaha aynu ku maraynay salaaduhu waynu noo imaan doonaano waxa macnaha waktigooda ku tukada markii la yihahdo halkaan waynu kusii faahfaahin doonaaye haddiiba salaadii macnaha markii jihaadka lagu jiray halkaa ay qofka ka dhici weysay ta'khiir kaloo keeni salaadii ku imaan kara marka ma jiro qofkii xaaladii jihaadka uu ku jiray oo cabsida uu ku jiray ayaa la yidhi salaad dib uma dhigi kartid markaaba tukada tukashadeedii halkaa la isku faray salaadii marka waktigii uma hayo macnaha waan shaqeeya iyo waad aragtaa dadku waxay ku cudur daaranayaan waan shaqeeyaayo salaadii miyaan ka tagaa ma dib dhigaa bay kuleeyihin marka waxyaabahaasoo ilahay wuxuu leeyahy fain khiftum haddaad baqdaan fasalluu tukada rijaalan idinkoo soconaya ow rugbaanan ama gaadiid saaran taangigaagii iyo baabuurkaagii iyo technikaaga meeshaad maraysa adoo saaran tuko fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan cabsidii aad ka baxdaan fadkuru llaha alla xusa oo u tukada kamaa sidii callamakum idiin baray maa shay lam takunu ay ahayn taclamuuna kuwa garanaya
marka salaadaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam xifdintoodu aad buu noo faray, aad buu noogu ekeeyey. waxaad garanaysaan marka waxyaabaha rasuulku uu ka dardaarmay ashyaada kale oo dhan iyo cibaadaadka oo dhan malagaa toos u keenayay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa u waxyoonayay inta loo keeno. laakiin salaadu way ka duwaneedo inta la dheelmiyey oo fawqa 7 samaawaat inta la geeyey yaa toos loogu soo dhiibay. intaa keliya kuma ekeen rasuulku member dushiisuu fuulay markaasuu haddana salaadihii ka hadlay oo sida loo tukanayo u yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli, war u tukada saad ii aragteen anoo u tukanayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaa u tukada. salaada la iska rabana waa taa weye oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ummadda uu barayo uu leeyahay salaadaha waktigoodii ku salaad walbana waad aragteeno hadda kitaabka idii celinayo cumdaha mawaaqiitu salaad, salaad walbaba waktiga ay leedahay. jibriil baa inta u yimid waktiga hore iyo waktiga dambe dhanba salaadihii ka tujiyey. haddana intaa kuma ekeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam naftiisa qaaliga ah marka la oobsanayo isagoo leh asalaad wamaa malakat aymaanukum asalaad wamaa malakat aymaanukum isagoo leh ayaa nafta laga qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam. intaa keliya laguma ekayn ee maalinka qiyaama camalka addoonka iyo allah subxaanahu watacaala ka dhexeeyo daftarka iyo buugga ugu horeeya lasoo saarayo salaada lasoo saaraya. acmaasha kaloo dhan oo cibaadaadka lama soo saarayo waxaa laleeyahay marka ugu horeysa qofkan salaadiisa soo saara. ina awala ma yuxaasabu bihi alcabdu yawma alqiyaamati min camalihi asalaat fain salaxat faqad aflaxa waanjax wain fasadat faqad khaaba wakhasir uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabinaya camalka isaga iyo alla u dhexeeya salaada ugu horeyso. fain salaxat hadday wanaagsanaato salaadii arkaanteedii shuruudeedii awqaadeedii xuduudeedii waxeedii oo dhan uu ilaaliyo fain salaxat faqad aflaxa waa liibaanay waana ku baramoosay imtixaankii. haddii salaadii ay ka xumaatana imtixaankiina waa ku dhacay waana guul daraystay waa halaagsamaya salaadihiisi camalkiisi kalena way xumaanayaan. intaasi marka waa salaadihii haddaan uga gudno salaada cudurdaar iyo fudfudeed iyo yaysa kaaga tegin. marka xaafidu xifdiya cala salawaati salaadihii wa salaati lwustaa iyo salaadii fadliga badnayd isu taaga waa salaadii casarka weeye waquumuu isu taaga lilahi alle qaniitiina idinkoo ateecayo aamusan. fain khiftum haddaad baqdaan fasalluu tukada rijaalan idinkoo lugaynaya ay raajiliina weeye macnaha fasalluu raajiliina idinkoo lugaynaya ow rugbaanan ama gaadiid saaran. faidaa goortii amintum aad aamin noqotaan fadkuruu xusa allaha alla xusa kamaa sidii u xusa callamakum uu idin baray ay ka tacliimihi iyaakum idinku idin baray maa shay uu idin baray lam takunuu aydan ahayn taclamuuna kuwa wax garanaya. waaladiina kuwii yutawafawna la oobsanayo oo minkum idinka mida raggiyow oo wayadaruuna ka tegaye azwaajan xaasas ka tegaye wasiyatan ba ahaatay ay macnaha falyuusuu ha dardaarmo hadal baa meesha ku qadaran. wayadaruuna ka tegaye azwaajan xaasas falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskoodii ha u dardaarmaan mataacan raaxasiin iyo nafaqay u ahaatay ila alxawli sanad laga gaaro gayra ikhraajin iyagoo aanan bixinaynin oo guryihii aan ka saaraynin. fain kharajna hadday baxaan haweenkii sanadkaa gudihiisa falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa facalna ay ku sameeyaan anfusihina naftooda dhexdeeda oo min macruufin shay walbaba markay haweenka wax ay ku dhaqaaqayso macruuf baa lagu xiray. aayaadka aad u ictibaariya inta aanu soo marnay oo dhan weliga iyo marka lala hadlayo haweenta lala hadlayo shay aan macruuf ahayn haddii ay samayso oo akhtaa oo diinta aan u wanaagsanayn ninkiina waa lagala xisaabtamaya iyadana waa lagala xisaabtamaya. marka waxaa la yidhi raggii bay ku dhacaysaa falaa junaaxa weligii baa ku dhacaysaa dadkii wakiilka ka ahaa falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahanin fii maa shaygii dhexdiisa facalna ay ku sameeyaan fii anfusihina naftooda oo min macruufin wanaaga. shay aan macruufan hadday sameeyaan waa lagu qabsanaya. wallahu allana casiizun waa allaha haalibka addoommadiisa ka adagoo xakiimun oo xikmada falsan oo shay walbaba meeshii loogu talagalay dhigaya. aayaddaani waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan aayaddaani siday culummadu u badan yihiin oo dhan waa aayad mansuuqa ah. tilaawadeeda unbaa kitaabka noogu taala laakiin xukunkeeda markaynu naasika soo marayna waxaanu niri waxaa jira aayaad tilaawadoodu ay qur-aanku ku taalo oo la akrinayo oo lagu cibaadaysanayo laakiin xukunkoodii la nasakhay sida loo badan yahay culummadu u badan yihiinna ibnu jariir atabari iyo culummada imaam shaafici ay yidhahdaan aayaddaani aayaddii ka horreysay baa nasakday. aayadii ka horreysay waa tee waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihina 4 ashhurin wacashra. aayadda aanu soo marnay
ayaa nasakday oo ayadan wax xukun oo laga qaadanaya male. tan labaadna waxa kale oo wasiyada laftigeeda dardaaranka la leeyahay falyusu wasiyatan liazwaajihina aayadii suuratu nisaa baa nasakdayo haweenkii waxa aayadii dhaxalka ahayd ayaa nasakday oo dhaxalkii waxay ku lahaayeen xaqooda la cadeeyo dardaaran uma baahna marka in loo dardaarmo dhaxalkii wixii ku hayeen bay qaadanayaan. بعض العلماء waxay leeyihiin labada aayadood bay jamcinayaan hadii uu u garta isagiyo haweentu iska wanaajiyo sanadkaasi oo waxa weeye wixii xuquuqdeeda iska leh la iska sii gacan marsiyo gurigeeda iska deganaato oo u dardaarmo khayr iyo wanaag iyo waxa macnaha inay noolaato mataacaasi nafaqo iyo in la siiyo sanadkaasi iyadoo gurigeedii aan laga bixinaynin asal haweenta laga dhintay guri kama baxayso oo meesheedii bay ku cidda tirsanaa hatta haday mahram haysato ma safri karto safar ma aadi karto ma shaqaysanayso oo shaqo kama qabanayso sidaas nafaqadeeda marka sharcigu tixgelin gooni ah uu siiyay oo maadaama gurigiisa joogayso oo aan laga saaraynin axaadiista rasuulkana ay tilmaamayaan inaysan ka baxaynin ilaa dana yar iyo xaajaad ay soo qabsanaysa mooyee inay u soo hoyatana waajib ay u tahay arrimahaasi markii la tilmaamay ayaa marka nafaqadeedii la doonaya in la saaro maadaama marka la soo yiri haweentii laga geeriyooday macnaha 4 bilood iyo 10 habeen ha soo tirsato oo ciidadeedii halkaas ha ahaato aayaadkani waa mansuukha weeye marka tilaawadeeda baa noo qoran oo lagu cibaadeysanaya laakiin xukunkeeda waa mansuukh qolkaasana ila xoog badan بعض العلماء jamcin bay raadiyaan laakiin ay mansuukha tahay xoog badan wayna ka horeysay taas marka aayadana soo hordegtay oo aayadii walladina yutawafawna dambaysay لكن حق الكتاب كمصحف كآيات سكوه الرئيس معناها آيات قرآن كوه الرئيس سيد معناها عثمان لو ويديو كله والذين كوي يتوفون الأبسنة أو منكم إذن كم إذا رجيوا ويذرون كتجي أزواجا حاسس كتجي فليوصوا هو دردارمن حاسس كي وصية دردارا لأزواجهم حاسس كودي دردارمان متاع الراحسين يمنفقوي إلى الحول سنة اللي جاره غير إخراج إيوه أنا بحنين فإن خرجنا هذي بحان فلا جناح وحدا بيا عليكم دشين ماهان فيما شيء حديثة فعلنا إكسميان في أنفسهن نفطوضة ومن معروف وناقة والله الله عزيز الله غالب كأدوم دي سكاء ذقوية حكيم أو حكمة فلسنو شيء والبماشي الله تلقى ليدقية وللمطلقات هوينكي لفوري متاع راحسين بالمعروف وناقة حقا بيكوتهي على المتقين كوا متقين تي الله كبقية محسنين بهوري الله سو شيغي هوري waxaa kaloo loo soo sheegay kuwa gabdhaha la mataac siinayo gabdhihi aanan meher loo sheegin ومتعوهن لير على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين باللير oo halka waxa lagu soo sheegay haweentii aan wax meher loo sheegin hadii la furay in gacan maris la siiyo gabadhii la wanaajiyo oo aradbax iyo waxa weeye wanaajin kale iyo qofku wuxuu ku heli karo curfiga ay u noqonayso gabar waxa lagu hagaajiyo oo waxa weeye lagu wanaajiyo deegaanka iyo curfiga iyo meeshii la joogay u noqonaysa macruufka ah waxa wanaajin gabar la yiraahdo ruux nin uu gabar ku wanaajiya oo بعض العلماء markii ninka la yiraahdo Hussein bin Ali oo Ali bin Abi Talib wiilashu nabiga awoogu u ahaa markuu Ali bin Abi Talib dhintay ayaa gabar uu qabay ayaa waxay ugu tahniyeedaysay tiri tahniye alla kay tiri marka boqortooyadii iyo madaxdii islaamka madax ka noqonaysa ma aabahay oo dhintay baad macnaha igu tahniyeedaynaysaa bay tiri islaamka maamulkiisa iyo madaxdiisa waa ku furay buu yiri markaasuu 10,000 oo dirham buu mataac siiyay oo raaxasiintaas oo macnaha 10,000 dirham marka qodba meel bay u noqonaysaa marka wanaajinta aayadan labaad ee walil mutallaqaati mataa'un bil ma'ruf haweenka la furay oo dhan bay sheegaysaa in macnaha tii meherka loo sheegay baa xaq ku soo marnay halkaana haweenkii la furay oo dhan mataac iyo raaxasiin qolkaasna waa qol xoog badan ogow oo waxa weeye meherkoodii ma ooyee wax kale oo gacan maris oo wanaajin oo gabadhii lagu wanaajiyana tii waxa weeye khaaska loo soo sheegay ee meherka aan loo soo sheegin iyo kuwii la furay oo dhan waxay ku tahay sidaas waxa rajaxaya ibn Jarir al-Tabari imaam al-mufassirin baa la yiraahdaa culimada waxa ay tafsiirka ninka loogu noqdo weeye sidoo kale imaam Shaafici ayaa xoojinaya qolkaasana moodaa inuu xoog badan yahay haweenkoo dhan in ma aragtay gacan mariskaasi ay leeyihiin walil mutallaqaati kuwii la furay mataa'un raaxasin iyo wanaajin iyo nafaqo iyo gacan god bil ma'ruf oo waaga ayay leeyihiin bay ku tahay baa leertaas daynaysa xaq على المتقين كوا متقين تي الله كبقى أيها سيدا يالا أو وناجية
marka in la bixiyo waajibaadkaasi maaragtay gacan marsiintaasi gabadha la siiyo oo la wanaajiyo tii la furay iyo tii waxa weye oo haweenka la furay oo dhan, ama waxa weye ha loo galmoodo ama yaan la golmoon, ama meher ha loo sheega ama yaan loo sheegin. cumuumka aayadda un baan qaadanayna. kadalika sidaasa yubayinu uu cadayn allahu alle uu cadayn lakum idinku idiin cadayn aayaatihi aayaadkiisa lacalakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad wax garataan ayaad mudantihiin. mar walba ilaahay subxaana watacaala markuu axkaam noo soo sheego kadalika sidaasuu yubayinu u cadayn allahu alle lakum idinku idiin cadayn aayaatihi aayaadkiisa lacalakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad wax garataan. alam tara ka waran nabi maxamed uma soo gaadhay ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaal hum iyagu uluufun ay yihiin kumanaan guryahoodii ka baxay. maxay oga baxeen? xadara almawti geeri ka digtoonaan iyo baqdin ay geeri ka baqayaan darteed ayay guryahoodii oga baxeen. faqaala markaasaa wuxuu yidhi lahum ayagii uu ku yidhi allahu alle uu ku yidhi muutuu dhintuu ku yidhi. uma dabadeed famaatuu waa dhinteen marka. uma dabadeed axyaahum mee uu soo nooleeyey. halkaa marka inay dhinteen baa ku qadaran. faqaala wuxuu yidhi lahum ayagii uu ku yidhi allahu alle uu ku yidhi muutuu dhinta haye. uma axyaahum meesha marka waxaa ku qadaran dhexdooda famaatuu way dhinteeno uma axyaahum uu soo nooleeyey. ina allaha alle laduu fadlin dheeraadsiin allaha u saaxiibka weeye cala annaasi dadka dushooda walaakinase akhara annaasi dadka badankii laa yashkuruuna kama shukrinayaan nimcadaa iyo fadliga dheeraadka ee allah subxaanahu watacaala uu siiyey. aayaadkadeedaba qur-aanka markaad aragtid marka loo soo araar dhiganayo hordhac loo soo samaysanayo jihaadka waxaa lasoo hordhigaa horta geeri xabad iyo diin meel aad tagtay naftu ma soo hormariso mana dib dhigto. cabsi aad iscab dib dhigtay oo guryo aad isku reebtayna naftu khatigeedii iyo qadarteedii gadaal uma dhigto. oo intaba waxa weye wax ilaahay subxaana watacaala gacantiisa ku jira. dad guryahoodii geeri iyo cabsi oga baxay yuu ilaahay subxaana watacaala u qadaray. marka ma keento aayaadka dambe imaanayo lagu boorinayo inay waxa weeye dagaalamaan ayaa loo sii tirtirsigelinaya. aaraarta sidaasaa looga hormarinaya, qisada looga hormariyay. alam tara ka waran nebi maxamedow ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay wahum ayagoo uluufun kumanaan ah. maxay uga baxeen? xadara almawti geeri ka digtoonaan darteed. faqaala wuxuu ku yidhi lahum ayagii uu ku yidhi allahu alle uu ku yidhi muutuu dhinta. famaatuu way dhinteen. uma dabadeedna axyaahum uu soo nooleeyey. ina allaha alle laduu fadlin dheeraadsiin allah u saaxiibka wey cala annaasi dadka dushooda, ama laduu fadli dheeraadsiinta midka iskale weye cala annaasi dadka dushooda walaakinse akhara annaasi dadka badankii laa yashkuruuna arrinkaasi kama shukrinayaan nimcadaa ilaahay subxaana watacaala u siiyey. marka intaa lagu tambiihiyo naftan qadaa iyo qadar alla subxaana watacaala bay ku qorshaysan tahay. ama dagaal tag ama gurigaa joog, xaaladda ay naftaadu qadarteeda iyo qadaheeda u yimaado unbaad geeriyoonaysaa. allah waxa uu leeyahy waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka alla subxaanahu watacaala ku dagaalamayay diintiisii koryeelisteeda. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle samiicun inuu yahay allaha maqalka badan, caliimun ee cilmiga badano shay walbaba la socda. waa amarkii marka waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka alla subxaanahu watacaala ku dagaalama. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle samiicun allaha maqalka badan, caliimun ee cilmiga badan inuu yahay. man waa kee daakaas alladii kaasoo yuqridu amaahinaya allaha alle qardan amaah xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu uu u labalaabayo daynta lahu asaga huda waxay unoqonaysaa dayntii oo fa yudaacifa uu u laabalaabayo dayntii lahu asaga adcaafan laablaab kasiiratan tiro badan. wallahu alle yaqbid wuu urinaya wuu koobaya oo addoonkii waa ku cariirinaya wayabsutu wuu u waasicinaya wuu u fidinaya wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya ad u laabanaysaan. aayaadkii marka ilaahay subxana watacaala wuxuu ku tirtirgelinayaa bixinta min nafaqada iyo khayrka iyo dariiqa ilaahay subxaana watacaala diintiisa wax lagu bixiyo. waa amaah ilaahay subxaana watacaala laga cabirayo shay intaad siiso uu ilaahay subxaana watacaala ku labalaabayo. man waa kee daakaas dariiqaas waad mari kartaa. man waa kee daakaas alladii kaasoo yuqridu amaahinaya allaha alle qardan amaah xasanan wanaagsan. ama isku qabo waxaad tidhahdaa man tha alladii keebaa yuqridu amaahinaya allaha alle qardan amaah xasanan wanaagsan
oo fayudaacifahu uu u labalaabaya amaahdii iyo dayntii huda dayntay u laabanaysaa damiirka lahu asaga adcaafan laablaab kasiiratan tiro badan wallahu alle yaqbidu wuu ku cariiriyo qofkuu doono irsaaqadii wayabsutu wuu u waaficiyaayo wuu u fidiyaa wa ilayhi turjacuun xaggiisana la idiin celinaya aad u laabanaysaan alam tara ka warran nebi maxamedow ila almala'i duulkii iyo akhyaartii iyo odayaashii min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ahaa ka warran min bacdi muusa nabiyullahi muuse kadib id wakti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyi nebi ayagoo linabiyi nebi lahum ayagoo usugnaaday ay ku yidhaahdeen ibcas bixi lanaa annaga noo soo saar melikan melig iyo boqor nuqaatil aanu dagaalane fi sabiili illahi jidka alla subxaanahu watacaala aanu ku dagaalane qaala wuxuu ku yidhi nebigii hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii la waajibiyo la qoro calaykum dushiina alqitaalu dagaalkii allaa tuqaatilu inaydaan dagaalamin qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa maxayba lanaa noo sugnaaday anlaa nuqaatila inaynaan dagaalamin fi sabiili illahi jidka alla subxaanahu watacaala waqad qad ukhrijnaa nala saaray oo nala bixiyey min diyaarinaa guryahanaga iyo wa abnaa'ina carruurtanadii nala ka saaray seeba inaan u dagaalamaynin falamaa goortii kutiba lagu waajibiyey oo lagu qoray calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii tawallow way jeesteen ilaa qaliilan in yar mooye oo minhum ayaga ka mid ah reer bani israa'iil wallahu alle caliimun waa allaha cilmiga badan bidhaalimiina kuwa dhaalimiinta oo garashada u leh halkan aayaadkan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noo tilmaamayaa reer bani israa'iil markii nabiyullahi muuse kabacdi mudday wanaagsanaadeen oo ay roonaadeen intii waxa weeye ay markaa diintoodii usoo noqdeen oo tiihii kabacdi oo nabiyullahi muuse markuu dhintay kabacdi oo uu la joogo markaa ambiyadii qaar ka mida ay la joogaan ayaa markaa kabacdi diintoodii ay ka tageen markaasay lumeen markaasay xaqii ka dheeraadeen markaasay fidnoobeen markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala nimankii kanaacinta ahaa ayuu ku diray markaasay qabsadeen guryahoodii waxyaabihii waxa weeye sharafta ulahaa waxyaabahay qiimaynayeen xataa sanduuqii markaasaa laga wada qabsaday carruurtiina waa laga wada qabsaday xaasaskii waa lagala wareegay banaankaa la dhigay xaaladdaa markay marayaan ay calaacaleen oo isgarteen inay dunuub galeen iyo gef inay galeen markaasay waxay weydiisteen nebigii la joogay waxay ku yidhaahdeen waxaad noo soo saartaa melig noo soo saar waxa weeye meligaasoo midna maamulayo oo duulaanka iyo ciidamada hogaamiye weeye macnaha nuqaatil aanu dagaalane fi sabiili illahi jidka alle alam tara ka waran nebi maxamed ma ku soo gaartay ila almala'i madaxyaweyntii iyo duulkii iyo akhyaartii min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ahaa min bacdi muusa muuse kadibi warkoodii maku soo gaaray id macnaha wakti ama maku soo gaaray id wakti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyi nebi lahum ayaga usugnaaday ay ku yidhaahdeen ibcas bixi lana annaga noo soo saar melikan boqor nuqaatil aanu dagaalane fi sabiili illahi jidka alle qaala waxa uu yidhi nebigu uu yaqaan reer bani israa'iil ilaa waynu soo marnay laalaabkoodii iyo nebi wuxuu faray iyo inaysan markiiba ku degdegayn aysan qaadanaynin dhowr jeer baynu soo marnay nebiyullahi muuse intay wax weydiisteen sac bay weydiistaan markaasi 10 su-aalood kusoo celi marka dhaqankoodu la socdayo wax walbaba khilaafkooda uu badan yahay nebigii oo arka sii caraaranayo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi hal casaytum ma mudantihin in kutiba haddii la waajibiyo calaykum dushiina alqitaalu allaa tuqaatilu inaydaan dagaalamin so taa idinkama dhici karto idinkama suuroobayso marka tii bay ka caraaranayaan oo ka cudur daaranayaan oo waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa maxayba lanaa noo sugnaaday allaa nuqaatila inaynaan dagaalamin fi sabiili illahi jidka alle walxaal qad ukhrijnaa la saaray oo la bixiyey annagii min diyaarinaa guryahanagii nala ka saaray wa abnaa'inaa carruurtanadiina nala ka saaray oo nala ka qabsaday oo nala ka haysa see baan u dagaalamaynin dagaal meeshii uu mudnaa inaan ku dagaalano ruux gurigiisii iyo carruurtiisii laga soo saaray waa mudan yahay inuu dagaala see baanan u dagaalamayn falamaa goortii kutiba lagu waajibiyey calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii inay guryahoodii carruurtoodii soo ceshtaan tawallow wayba jeesteen ilaa qaliilan in yar oo minhum ayagii ka mid a mooye reer bani israa'iil dhaqankii lagu yaqiina waa ka markii lagu waajibiyey oo la yidhi marka dagaalama oo iska soo saara in yar mooye intii kaleo dhan way jeesteen ilaa qaliilan minhum in yar waa marka koowaad wallahu allana caliimun midka cilmiga badan weeye bidhaalimiina kuwa dhaalimiinta ah wa qaala waxa uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi nebiyuhum nebigoodii baa wuxuu ku yidhi ina allaha alle qad bacatha waxa uu soo saaray
oo soo bixiya lakum idinka ilaa malik bay weydiisteen طالوت buu idin soo saaray xaala kownihi malikan boqor uu idin yahay abaanduule uu idin yahay malik iyo boqor abaanduule oo dagaalkii idin horkacaya ilaa waad weydiisateene ilaahay wuxuu idin soo saaray waqaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga nabiyuhum nebigooda wuxuu ku yidhi ina allaha alle qad bacatha wuxuu soo bixiye oo soo saaray lakum idinka idin soo bixiye طaaluut xaala kownihi malikan boqor uu idin yahay oo hogaamiye uu idin yahay abaanduule idin yahay su-aal labaad bay keeneen haddana koox horay u tagtay kooxdii kaloo hartay baa inta badan way tageen intii hartay ayaa waxay yidhahdeen qaaluu annaa sideebuu yakunu u ahaaday lahu asagu ugu sugnaaday almulku boqortooyo calaynaa dushanada see boqor uu noogu noqday wa naxnu annaga axaqu oga xaqnimo badan bilmulki boqortooyada iyo maamulka minhu asaga walam yu'ta waa cilada labaade walam yu'ta lama siinin sacatan waasicnimo iyo fidsanaan oo min almaali maalkii kamid ah qaala waxa uu yidhi nebigii ina allaha alle ayaa marka hore istafaahu doortay hu isaga waxa weeye ninkan taaluud ah calaykum dushiina horta see ku diidaysaan allahba idin doortay wazaadahu wuxuu u kordhiyey bastatan buu u kordhiyey awood iyo fidsanaan oo filcilmi cilmiga iyo waljismi awoodda jirka ah ayuu u kordhiyey wallahu allana yu'ti wuu siiyaa mulkahu boqortooyadiisa man cidda uu yashaau doono wallahu allana waasicun waasica fadligiisa iyo dheeraadkiisa weeye caliimun oo cilmiga badan su-aal bay keeneen haddana hadday weydiisteen kooxii marka horeyba hartay oo markii la waajibiyey oo dagaal gala la yidhi waa wada jeesteen in yar baa hartay intii yareed ba allah subxaanahu watacaala haddana markii boqorkii loo soo saaray oo nebigu uu caddeeyo u yidhi waqaala lahum nebiyuhum nebigoodii baa wuxuu ku yidhi ina allaha alla ayaa qad bacata lakum taaluuta malikan taaluut baa la idiin soo saaray laba sifaba way yaqaaneen nebiyadana qolaa laga soo saaraye boqoradana qolaa laga soo saaraye intaba midaan ahayn baa laga soo saaray markaas xujada ay keenayaana waxay tahay haddee boqor ninkaan familkooda iyo reerkoodana ma noqona reer yar buu ka dhashay ma soomaali baa meesha uga eg yihiin marka waxay yidhahan see noo maamulayaan ninkaan waaba langaab weeyaba markaasa wuxuu yidhi nebigii isagoo u tilmaamaya cilladaha ay reer bani israa'iil tilmaamayaan oo ay leeyihiin see buu noogu noqonayaa boqortooye iyo madax annagaaba uga xaqnimo badan annagaaba dariiqii dadkii la dooran jiray oo wax maamuli jiray oo madaxda annaga weeye inaan see wax looga soo saaray jawaabtu nebigu siiyey waxay noqotay marka war ninkan ilaahay subxaanahu watacaala baa idin doortay isagaa idin soo saaray so idinka ima weydiisanin nin boqor oo duulaan iyo abaanduule idin geliyo ninkaana ilaahay subxaanahu watacaala idin doortay waa marka labaade awoodda ninka madaxda lagu doorto laba shardi oo kamid ah ayaa halkan lagu sheegay shardiga saddexaad suuratu yuusuf buu noogu imaanaya nin haddaad dooranaysid madax ah oo maamul iyo dawlad iyo dhismihiisa shareecada islaamka xad bay u dejisay cid walbaba lama dooran karo faasiq walba lama dooran karo dhaalim walba lama dooran karo laba shardi halkaana lagu sheegay horta ninku waa inuu cilmi yahay aqoon leeyahay aqoontaas weliba bastatan fi lcilmi buu ilahay isleeyay fidsanaan iyo awood cilmiga xaggeeda iyo jismiga kan labaadna waa inuu lixdiisa lixaad qabo waad aragta nidaamyada qawaaniintan hadda adduumada ninku waa inuu waxa weeye dhagala-ayn waa inuu waxana lixdiisa lixaad qabo waa inuu dad maamul kara shareecada islaamku mar hore ay dejiso suuratu yuusufna waxaan ugu tegi doonaa haddii alla na gaarsiiyo cadaaladda iyo amaanada marka waa awoodda ko waxa weye ninku inuu cilmi leeyahay inuu nin lixdiisa lixaataan ay yihiin oo jismigiisa loo maamuli kara inuu yahay oo awood iyo karti u leh waa marka saddexaade waa inuu amaano leeyahay saddexda waxa weeye qof lagu dooran karo ee maamula shareecada islaamka u dejisay inta kale farac bay ka yihiin intaasay ka farcamayaan wa qaala waxa uu yidhi lahum ayaga uu u yidhi nebiyuhum nebigoodi uu u yidhi ina allaha alle qad bacatha wuxuu idin soo saaray lakum idinka taaluut xaala kownihi malikan boqor uu idin yahay oo abaanduulo idin yahay qaaluu waxay yidhaahdeen annaa sideebuu yakunu u ahaaday lahu asagu ugu sugnaaday almulku boqortooyada annaa yakunu lahu lmulku sideebuu boqortooye mulki uu yeeshay oo ulahaaday calaynaa dushanada xaal naxnu annagu axaqu aan nooga xaqnimo badan nahay oo aan ka leenahay bilmulki boqortooyada minhu asaga walam yu'ta waa marka labaadee lama siin sacatan waasicnimo iyo waxa weeye fidsanaan min almaali maalka ah nin xoola haystaba ma lehe nin baa faqiir ah see noo maamulaya faqaala wuxuu yidhi nebigii ina allaha alle ayaa istafaa doortay hu asaga taaluut calaykum dushiina wazaada wuu u kordhiyey hu asaga taaluut bastatan fidsanaan iyo awood filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga iyo jirkaba labadaba ilahay subxaana watacala awood buu usiiyey oo waasicnimo u siiyey cilmi waasaca iyo jir waasica iyo jismigiisa dhisan buu siiyey oo ninka abaanduulaha waa nin abaanduula oo dhisan oo ciidankii hogaaminayo qidadiisii iyo jismigiisi iyo caafimaadkiisa u dhan yihiin
wallahu alle yu'ti wuu siiyaa oo marka saddexaade mulkahu boqortooyadiisa kuma xirna kana laandheer iyo kana laangaabe man cidda uu yashaau doonu siiya isagaa maamula wallahu allana waasicun waa mid waasica fadligiisa iyo dheeraadkiisa caliimun oo cilmi badan halkaa koox labaad baa ku hartay وقال waxa uu yiri lahum asagu nabigiiba usii cadaynaya وقال waxa uu yiri lahum asagu nabiyuhum nabigoodi wuxuu ku yiri inna aayata mulkigiisa iyo boqortooyadiisa hidaas dambe waxay u noqonaysaa taaluud inna aayata mulkihi ninkan taaluud ah mulkigiisa iyo boqortooyadiisa aayada iyo astaanta calaamada u ah wa an ya'tiyakum inuu idin yimaado taabuutki iyo sanduuqi la idinka qaatay oo la idinka dhacay fihi dhexdiisa waxa ahaatay sakiinatun deganaan iyo xasilooni oo min rabbikum xagga rabbiga kamida sanduuqa ma wato wa baqiyatun iyo haraa oo mima kii taraka ay ka dhigeen aalu muusa ree aalu muusa iyo wa aalu haaruna iyo ree aalu haarun wuxuu ka tegayba sanduuqa dhexdiisa haraa ku ah taxmiluhu ay xambaarayso ay keenayso almalaa'ikatu malaa'igti baa idin imaanaya taana cadeen bay u tahay sanduuqii la idinka qaatay ee la idinka dhacayo ilaa muqadasaadkoodii oo dhan baa la dhacay waxay reer bani israa'iil ahaayeen marka waxaa muqadasaadkii ay kanaacintii ay dhaceen oo reer bani israa'iil ka adkaaday oo carruurtii haweenkii kala hadlay baa waxaa kamid ahaa sanduuqii iyo taabuutkii sharafta badnaayo macnaha nabiyullaahi muuse iyo calaamo u ahaan jiray reer bani israa'iil marka ay duulaan gelayaan ayaa la keeni jiray markaasaa sakiino iyo xasilooni ilaahay xaggiisa ka timid baa kusoo degi jirtay ee ma aha sanduuqi inuu wato marka waxa uu yiri taasna calaamad bay u tahay inna fi dhalika arrinkaasi la aayatan aayad iyo calaamad baa ku sugan lakum idinka in kuntum hadatihin mu'miniina kuwa wax garanaya dhaqaaqa oo socda oo taga وقال wuxuu yiri lahum ayaga nabiyuhum nabigoodi wuxuu ku yiri inna aayata mulkihi ninkan mulkigiisa iyo boqortooyadiisa aayada iyo astaanta iyo calaamada lagu garanayo waxa weeye an yaatiyakum inuu idin yimaado ataabuut sanduuqi fihi dhexdiisu ay ahaatay sakiinatun deganaan iyo xasilooni oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka timid iyo wa baqiyatun haraadi mima kii taraka uu ka tegay aalu muusa ree aalu muusa wa aalu haaruna iyo ree aalu haarun taxmiluhu ay xambaarayso sanduuqi almalaa'ikatu malaa'igti baa laidin keenaya inna fi dhalika arrinkaasi la aayatan aayad baa ku sugan lakum idinka idinkugu sugan in kuntum haddaatihiin mu'miniina kuwa wax garanaya koox labaad baa halkaa ku hartay falama goortii fasala uu la soocmay oo uu la baxay taaluutu ninkii taaluud ahaa biljunuudi ciidankii intii la hartay intii u haray qaala waxa uu yidhi ina allaha alle kooxdii kaluu la hadlaya oo markii saddexaad weeye kooxdii saddexaad ee usoo hartay buu la hadlayaa falama goortii fasala uu la soocmay taaluud biljunuudi ciidankii uu magaaladii kala baxay oo uu la soocmay ayuu waaninaya oo u qudbaynaya qaala wuxa uu yidhi ina allaha alle mubtaliikum wuu idin imtixaamaya binahrin webi wuu idinku imtixaamaya faman ruuxii shariba caba minhu webiga xaggiisa ka caba falaysa ma ahani mini aniga iga mid maaha ciidankaygana ka mid maaha waman lam yatcamhu qofkii aanan dhadhamin oo aanan quudan webigaasi fa inahu asagu minii anigu iga mid yahay ilaa man ruux mooye ikhtarafa darsaday gurfatan darsasho biyadihi gacantiisa hal mar ku darsaday mooye kaa waa loo ogolyahay haddii ciidankii sidaa la yidhi oo webigaani qofkii aanan cabin anigu ciidankayga ka mid yahay qofkii biyihiisa ka dhergana ha iska noqdo gurigiisa ha ku noqdo markii saa la yidhi kuwa weliba aanan cabri waxaa loo ogolaaday hal mar keliya inay darsadaan amarkaas imtixaankaasaa yimid fa sharibuu way cabeen minhu webigii xaggiisa ilaa qaliilan in yar oo minhum ayaga ka mid mooye koox saddexaad ba halkaa ku hartay waa webigii baa la gudbay marka falama goortii jaawaza uu gudbay webigii huwa isaga laba mir baa meesha ku kulantay marka hudan hore ee jaawaza togi iyo webigii weeye hudan dambana waxay u noqonaysaa waxa weeye jaaluud iyo waladiina aamanuu marka labada damiir ka darsamin marka falama goortii fasala uu la soocmay taaluud biljunuudi ciidankii uu la soocmay qaala waxa uu yidhi ina allaha alle mubtaliikum wuu idin imtixaami binahrin webi buu idinku imtixaami faman ruuxii shariba ka caba minhu webiga xaggiisa falaysa mini iga mid ma aha waman lam yatcamhu qofkii aanan dhadhamin oo aanan quudan fa inahu asagu minii anigu iga mid yahay ilaa man ruux mooye ikhtarafa darsaday gurfatan darsasho biyadihi gacantiisa ku darsaday mooye fa sharib way cabeen minhu webigii xaggiisa ilaa qaliilan in yar oo minhum ayagii kamida mooye
koox saddexaad ba halkaa ku hartay falamaa goortii jaawaza uu gooyey oo gudbay togii iyo webigii huwa asaga taaluud iyo waladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay oo macahu la jirankiisa ahaa markii xagga loo dhaafay ayay qaaluu ayagana waxay yidhahdeen kooxdii afar laa taaqata wax daaqiin awood lana annaga nooma sugnaanin alyawma maanta bijaaluuta ninka jaaluuda ciidanka kala wata iyo wa junuudihi junuudiisa jaaluudow annaga awood uma hayna ciidankaasna soo hor taagan ee tirada badan kooxdii afraad wey iyaguna halkaasi muran ka keeneen qaaluu waxay yidhahdeen laa taaqata wax daaqiya awood lana annaga nooma sugnaanin alyawma hadda weye markaas weye alyawmada maantaasa haddadaasa laga hadlaya markaa isaga weye marka hadda inaad ku fasirtaa fiican qaaluu waxay yidhahdeen laa taaqata wax daaqad iyo awooda lana annaga nooma sugnaanin alyawma haddada bijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa qaala waxa uu yidhi qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanaa malaynaya hadhihin yadunnuuna yaqiinsanaa annahum iyagu mulaaquu inay la kulmayaan mulaaqullahi alla inay la kulmayaan waxay yidhaahdeen kan badana min fi'atin koox qaliilatin yar oo halabad ka adkaatay fi'atan koox kasiiratan tiro badan biidni illahi idanka ilaahay oga adkaatay war niman yo habaqine badnaanta wax qiimo ma lehe meeshu guushi iyo guuldarrada xagga ilaahay bay ka timaadaya yaqiin iyo la imaado ilaahay subxaana watacaala yaqiiniya oo yaqiintaas ku xisaabtama waxa uu idin siinayo adduun iyo aakhira wax walbaba ka qiimo badan nafta aad la cararaysaan ma aha iyo fulaynimada wallahu allana maca saabiriina kuwa sabrayo macooda uu yahay kooxdii afraadna halkaasay ku hartay oo markii la waaniyeyna waa iska noqdeen qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanaa annahum ayagu mulaaquu inay la kulmayaan mulaaqullahi inay alla la kulmayaan waxay yidhaahdeen kam badana min fi'atin koox qaliilatin yar oo halabad ka adkaatay fi'atan koox kasiiratan tiro badan biidni illahi idinka alle wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabruu macooda yahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa walamaa goortii barazuu ay isu soo bambaxeen ay isu soo socdeen lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa ay soo banaan baxeen qaaluu walamaa goortii barazuu ay soo banaan baxeen lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa qaaluu waxay yidhahdeen mu'miniintii rabbanaa rabbiyow afriq shub calaynaa dushanada sabran sabr shub wathabbit sug aqdaamana gomadahanaga wansurnaa nooga gargaar cala alqawmi qoom dushiisa alkaafiriina ee gaala ah in lagu ducaysta xaaladahaas oo kale way sugan tahay marka waad garanaysaa nabigii dagaalkii beder iyo markii la gelaya ilaa ay maradu ka dhacday garbihiisa walamaa goortii barazuu ay soo banaan baxeen lijaaluuta jaaluudihi wa junuudihi ciidankiisa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbiyow afriq shub calaynaa dushanada sabran sabr shub wathabbit sug aqdaamana aqdaanteena iyo gomadahanaga wansurnaa nooga gargaar cala alqawmi qowm alkaafiriina ee gaala ah fahazamuu way jebiyeen hum ayaga biidni illahi idanka allay ku jebiyeen fahazamuu waa taaluud weye fahazamuu wuu jebiyey hum ayaga waxa weeye taaluud iyo junuudiisa biidni illahi idanka allu ku jebiyey waqaatala wuu dagaalamay ciidankuu ka mid ahaaye daauud ciidankii taaluud socday buu ka mid ahaa waqaatala wuu dagaalamay daauud jaaluud buu la dagaalamay wa aataa wuxuu siiyey hu asaga nabiyullaahi daauud allahu alle almulka boqortooyuu siiyey iyo walxikmata nebinimuu siiyey wacallamahu wuxuu baray mima kii yashaau uu doono ayuu alla subxaanahu watacaala baray marka nabiyullaahi daauud ciidankaas socday ee taaluud watay unbuu ka mid ahaa markuu jaaluud dilay oo ciidankuu ka mid ahaaya oo uu ka adkaaday ayaa ilaahay subxaana watacaala waxaa la tilmaamayaa waktigii dambe in mulki iyo xikmad iyo nebinimo la siiyey walowlaa haddaysan jiri lahayn dafcullahi reebitaanka alla uu ku reebaya annaasa dadka bacduhum qaarkood bibacdin qaarka kale oo kuwa fasaaday ee kibre kuwa kale aanan lagu dirin oo aanan lalaynin lafasadat ilardu arladoo dhan baa fasaadi lahay walaakina allaha se alle duu fadlin dheeraatin midka u saaxiibka weeye cala alcaalamiina caalamiinta dushooda tilka taasi aayaatullahi alla aayaadkiisa weeye natluuha waanu akrinayna calayka dushaada nebi maxamedow
بالحق أي متلبسا بالحق يضو حق كلها هاي وإنك أذيقنا لمن المرسلين محيكو إنكريان محا قصص كاكو أغيسيي في بني إسرائيل شانكو إنكرسان قصص كاكو هوراء كتبتو قريب إنا نكاغا ورنو أذيقو أمي وآنا أخرين وحي عضين أطهي وإنك أذيقنا لمن المرسلين كوا مرسلين تي الله سبحانه وتعالى صدري إنات كميتهاي فهزموهم ويجبيين جالوت بو جبيه عندما المؤمنين تها بإذن الله إذن كالله وقتل ودلي داود النبي الله داود جالوت ودلي نكي جالوت هاي عين كاوتي وآتا وسي هو داود الله الله الملك بقرطوية والحكمة هي حكمة النبي النمو وعلمه وبري مما كي يشاء دونه ولولا دفع الله هذي سنجري لحين ألا علمتيسا الناس دتك وكعليه بعضهم خاركود ببعض قدك كلا وكعليه لفسدت الأرض أرضه أنبا فساد لهي ولكن الله سأل لقول نغير ذو فضل ديراتين الله أصاحبك وي على العالمين عالمين تدشوضة تلك تاسي آيات الله الآيات كي سوي نطلوها وأن أخرنا نبي محمد عليك دشاضة بالحق يضو حق وحق لهي وإنك أذيقنا نبي محمد لمن المرسلين كوا مرسلين تاتكم بتهي والله أعلم.